Dahabshiil, your trusted financial partner. ninka Liverpool ka ciyaara ee la yiraahdo Sadio Mane ninkaas ayaa shirkadda Dahabshiil Group ayaa door weyn ka qaadatay bandhigga buugaagta carwada Hargeysa oo sanadkii 15aad oo xidhiidha lagu qabtay magaalada caasimadda Hargeysa. maamulaha shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Siciid Dahabshiil oo furitaanka carwadan khudbad ka jeediyay ayaa waxa uu taabtay doorka ay shirkaddu ka qaadanayso horumarinta dhaqanka iyo sida ay uga go'an tahay. Dahabshiil haddaanu nahay runtii dhaqanka waxaan u aragnaa iyo dhaqaaluhu markay isu tagaan in ummad ay horumari karto. dhaqanku waa ka dadka soo dhaweeya, ganacsatadu waa kuwa meel walba taga. maanta Hargeysa markuu lahaa jaamacad diyaaradii way buuxaan. waxay muujinaysaa dhaqaalaha Hargeysa iyo horumarka Hargeysaba inuu kor u sii kacay. oo maanta la leeyahay hudheel lagu dago ama diyaarad la soo raacaba la leeyahay. dhaqanka iyo dhaqaaluhu hadday kala hadhaan horumar ma jiro, nabadina ma jirto. marka inaad jaamac aad dhiirigelisaan labadaba aad ugu mahadsantihiin. dalka martidaynoo ah runtii Senegal ninka Liverpool ka ciyaara ee la yiraahdo Sadio Mane ninkaas ayaa Senegal aniga ay baray. marka aad baan ugu faraxsanahay. isna waxaan rajaynayaa inuu maalin Hargeysa inoogu yimaado oo buug ay nagala qayb qaato. wadajirku kelmadda wadajir maxay Soomaalidu tahay wadajir baa gacmaha ku gooya. marka wadajir weeyaan baa dhaqaalaha lagu kordhin karaa. wadajir baa nabadda lagu dhisi karaa. wadajir baa magaalada lagu nadiifin karaa. wadajir baa wax walba lagu gaari karayaa. marka ay wadajirka aynu sii wadno, sii xoojino, abaaraha wali hawlaha inoo yaalla aynu ka shaqayno. waa hay lafteeda wixii inaga dhimanaynu ka shaqayno. ganacsatada haddaynu nahay, haddaynu waddanka dadkii deganaan nahay, wadajirka aynu ku wada shaqayno waa kelmad aad u wanaagsan. waana ku mahadsan yihiin in xarunta kelmadda ay noo doorto halkaan aynu ka sii wadno. intaasi kadibna maamulaha shirkadda Dahabshiil ayaa martidii kala duwaneed ee ka socotay dalalka ka soo qayb galay carwadan waxa uu kula hadlay luqadda Ingiriisida waxaana uu yidhi Welcome to you all. It's a solidarity that brings all of us from the diaspora, from UK, from Taiwan, from America, everywhere, from Senegal. It's a solidarity that brings together all of us. Culture, business, solidarity is key. Without solidarity, we cannot move forward. That's why Dahabshiil has been supporting this culture center for the last 15 years. And we're very proud, all of those teams that took part this wonderful event to be successful for the last 15 years. And we would like them to continue next 15 years and beyond. It's a solidarity that brings development. It's a solidarity that brings peaceful environment. It's a solidarity that we can all challenge the common challenges that we have. Whether it's the access to job, whether it's the access to finance, whether it is the minority groups and all the people being marginalized to overcome the challenge they're going through. It's the solidarity that will help us all. And we, business community, we, the Dahabshiil, will continue to support that. And we would encourage everybody, including the international community, to work with all sectors that promoting solidarity and development. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.